الرحيم عشان waxaa ku baran doonaa wax la yiraahdo fuses iyo switches wax la yiraahdo macnaha hadii horta intaan fuses iyo switches aan gelin ka hor dhacay hadii aan ka bixino introduction ah oo maana markii qalabka loo isticmaalo the collection of various equipments kuwaas oo usually loo isticmaalo for switching and protecting in yani korontada lagu damiyo amba lagu daaro amba in lagu hortago power system macnaha power system midna current aad u fara badan la soo daayo kale qulqul koronto aad u fara badan marka la soo daayo kale dab u dhalin kara dabkaas marka looga hortago marka waxa loo baahan yahay qalab yani dabka inuu batana lagu ogaado dabkana joojiyo macnaha qalabkaas waxa loo yaqaan isugeentooda dhan switch gear loo yaqaan marka kullu waxa loo yaqaan switch gear loo yaqaan marka qalabkaas marka waxa kamid ah switch ka kamid ah daaro damiyaha kamid ah switch waxa la baalkaan oo kala hadii taamtiran switch kaan oo kala waxa loo yaqaan baalkaas waxa loo yaqaan switch waa nooc kamid ah switch gear system ku kamid yahay waxa kale oo kamid ah fuse ka asagana kamid oo kale fuse sida taqaanaan waa baalka yarka oo ku jiro dhow barees oo kala matan geedka ku dhex jiro oo bartaan ugu jiro waxa loo yaqaan fuse hadda aniga baalkii fuse ka ayaan dhigtay dhowr mar oo igu gubtay marka direct connection ka dhigtay macnaha fuse kana ka saare fuse ka marka baal inta ku jira lahaa yar oo dhalan ku wareegsan tahay baa fuse la yiraahdaa waxa kale oo kamid ah relays ka asagana qalabkaas ugu jira waxa kale oo kamid ah circuit breakers oo daaro damiyaha circuit breaker waa geedkan oo kale MCB gan oo kale waa macnaha kuwaas marka waxa loo yaqaan marka switch gears loo yaqaan marka shaqada qabtaan hore u soo sheegnay fault conditions amba abnormal conditions ka shaqeeyaan marka xaalad qalada ay imaado amba yani waxa kala dhamaanay marka shaqeynayaan oo maana marka fuse ka asaga marka muxuu qabtaa marka fuse ka bilaabana fuse waa midka uu yani shaqada fudud waa macnaha asaga qalabka la isticmaalo waa midka uu shaqada fudud waa waana shay yar oo ka samaysan bir gudihiis wax ku dhex jirta bir ka samaysan korna waxa kaga dadan inta badan dhalo baa kaga dadan marka basic principle ku shaqeeyo waxa weeyaan hadii marka flow of current badan uu ku soo dhaco wuxuu sameeyaa melting point uu leeyahay meel uu yani ku milmo leeyahay melting point hadii la gaaro uu gubanaya macnaha asagana uu kala go'aya fiilayar oo qafiif waa amba waxay ka samaysan tahay lead amba waxay ka samaysan tahay tin amba waxay ka samaysan tahay silver amba waxay ka samaysan tahay copper marka depending on inta current loogu talagalo ku shaqeynayo kaliya marka hadii current loogu talagalay current ka badan oo soo mara meeshaasi fiiladaas waxay sameeyeen gubanay marka ay gubatan waxay ka saaciday markaas in dabka socdo uu joogsado marka circuit kaaga in uu yani inuu go'o oo yani break circuit meesha ka dhaca marka intaas uu sheegay when excessive current markii dab fara badan flows through it marka circuit kaaga dab fara badan uu yani soo dhax maro the metal element melts metal element ku dhex jiro baarka fuse kaaga uu gubanaya macnaha and the current is interrupted current waa la joojinaya marka circuit gets disconnected circuit kaagana xiriirkiisu uu joogsanaya macnaha hadii midran dab qaldan oo kale midran soo daayo kale fuse baa bartaan kaga jiro fuse ka marka xiriiriye waa asaga marka xiriiriyaas go'aya marka hadii fuse kaas uu go'o marka dabka qulqulkiisa uu joogsana dab qulqulkiisa uu joogsana bareeska ma shaqeynaayo marka wuxuu ka saaciday marka in chargerku telefoonka ka gubin marka does the protect does it protects waxay difaacdaa marka circuitka waxay ka difaacdaa from dangerous excessive current dabka badan oo soo qulqulay ka difaacdaa marka fuse ka marka wuxuu joojiyaa marka qalad ka dhacaya marka waa kaas marka halka kaga baxna fuse ka waxaan gelinaa marka switch ka asaga marka daaro damiyaha caadiga waa marka daaro damiyaha oo kale waxa la lahaa switch am tan laa oo kale marka switch ka asaga marka fuse ka kaga duwan yahay fuse ka si automatic asaga u shaqeeyaa laakiin switch ka adigu ka raaw macna ina nalkaas amba aad damiso amba ina daarato adigu ka sugaya switch ka marka asaga marka automatic u shaqeeyo waa in gacanta laga shaqeysiya farqiga labaad u dhaxeeya waxa weeyaan switch ka iyo back raado fuse ka asaga waxa weeyaan abnormal condition kaliya bisoo shaqeeya macna fuse ka markuu gubanayo waa marka xaalad abnormal markii la soo siyaado weeyaan laakiin kan adigoo abnormal aan ahayn oo groupka ku fiican ku shaqeynaya lambadaada xagna ku shaqeynaya aad dansan kartaa macna switch kan kaldana marka switch is a device waa qalab wajis isirkaas oo loo isticmaalo open or close electrical circuit open circuit waxa la had midna koronto marka daaranto kale waa close circuit fiiladu way xiriirsantaa macnaha marka aan damin waxa la yiraahdaa open circuit oo sameeyna marka open circuit iyo close circuit labadaba ku shaqeyn karaan marka in the conventional way adiga marka qaabka arabtaas meesha kartaa it's optional macnaha the switch can be used waxa la isticmaali karaa on full load iyadoo koronto joogsa isticmaali kartaa ama no load condition adigoo yani waxba koronto aan ku xiriirsaneyn mesela anoo yani laambadaas i xiriirsaneen baan switch kana daari karaa oo koronto imaan karto hadii aan rabana waa dimin karaa inuu load joogo in kale qasab maaha macnaha
but it cannot use it laakiin loo isticmaali karo to interrupt the fault of the current haddii qulqul koronto uu qaldan oo meesha ka yimaado wax shaqo asaga ma qabanayo marka hadduu daaran yahay wuu sii daarnaana hadduu dansan yahay wuu sii dansanaana yani wax shaqo asaga ma qaban karo laakiin fuse-ka si automatically isku daminaa qalad haddii uu dhaco farqiga kale u dhexeeya waaya marka this is a basic difference waana farqiga u dhexeeyaba between a switch and the fuse farqiga u dhexeeya waa labadaba waa protection device laakiin switchka manual waaye haddii uu qalad dhaco adigoo rabaa inaad damisid markaad damisid kadib korontada dami laakiin fuse-ka asaga si automatic isku jaraya macnaha aan ka gudubno marka fuse-ka marka hadda si fiican u barana marka fuse-ka waa qalab yar oo gaaban oo ka samaysan bir kaasoo yani dhex geliya circuit-kaaga which melts kaasoo ku milma when excessive current flows markay qulqul koronto badan markuu yani soo dhex mara marka das markaana breaks waxay jebisaa the circuit-kaaga inuu joogsanaya macnaha qulqul koronto ay ka dhex socdo fiiladaada way joogsanaysaa haddii maalan fuse-ka breeskan ugu jiro anigoo iga gubto breeska chargerka ma ii shaqeynaya macnaha that is the meaning of breaks the circuit maana marka fuse-ka lasii qeexaya marka fuse-ka asaga mar walba wuxuu xiriirsan yahay qaab seriyaasa fiilada waa aragteen oo leenahay fuse-ka waa fiilo dheer oo loo madax leh waay macnaha gudaha kaga jirtaa dhalada ku dhex jirtaa fiilada dhalada saas markay u dhex marta marka labada gees waxay ka leedahay laba bir oo metal macnaha labada gees kaga dhigan dhexdana fiilada yaa marta qaab serious u xiriirsantaa marka parallel wax noocaas ma baxno waxaa lagu xiriiriyaa marka appliance qalabka yani loogu talagalay in la difaaco small waxay ka samaysan tahay small of metal used in the fuse called waxaa loo yaqaanaa fuse element yaa loo yaqaanaa fiilada yari soo dhex maraysa fuse-ka oo gubanaysa waxaa loo yaqaanaa fuse element yaa loo yaqaanaa marka irradiation waxaa loo isticmaalaa markaa for overload yani dab zaaid markuu meesha markuu kusoo kordhana way celisaa waxay kaloo celisaa markii uu dhaco short circuit haddii short circuit waxaa lagala jeedaa oo kale matalan dab qaldan mooso imaan koronto fiican haystaa 220 kg voltage baa ii socoto current waxaa haystaa ilaa 6 ampere ah laakiin fiilan soo qaatay madaxeeda inta geliyay isla fiilada kale ay tan godkan kale aan geliyay macnaha short circuit aan sameeyay marka short circuit aan sameeyay marka fuse koro ka qarxa asagana marka labaas xaalad uu shaqeeya dabna wuxuu ku shaqeyn karaa ilaa iyo 66 kilo volt uu ku shaqeyn karaa marka haddii aan kasoo gudubno marka under normal operation condition kaaga uu ku shaqeynayo fuse-kaaga it is at the temperature below the melting point waa temperature ka hooseeya melting point marka almost yani fikirka hore usoo sheegnayo yani ku celinayo kaliya sii waadixinaya wuxuu ku leeyahay kaliya haddii yani melting point cayiman uu leeyahay fuse-kaaga haddii dab fara badan uu kusoo dhaco melting point-giisoo dhaafaya oo yani dab badan ku dhacayo uu kulaana fiilada kulaanayso markay ay kululaatan way gubanay laba xaalad ay ku xirantaa marka kow dabka lagu soo daayay inuu dab fara badan inuu yahay oo dabka lagu talagalay dabka fara badan inuu yahay uu gubanaa fuse-kaaga waxaa kaloo soo kara in short circuit asmay sidoo kale short circuit haddii asmay sida amba overload oo kaas labaas xaalad inta badan sababta waxaa kaloo idan aad ku saaciidi doonta ama aad ku dhibaateyn doonto yani environmental geography-ga markaa joogto haddii meel saxara ah fuse-kaaga uu yaalo oo kuleel badan waxaa sahlaanaysa in melting point-giisu soo degdego oo raga gubto fuse-kaaga haddii meel qabowaa la joogana waxaa sahlaanayso in xili dheer markaa fuse-ka u shaqeeya marka blow out uu sameynaya uu gubanaya marka halkan marka waxaan ku baranayna marka current-ga iyo time-ka xiriirka dhexeeya marka haddii dab fara badan la soo daayo waqti yar uu ku joogsanaa fuse-kaaga yani waqti yar uu ku gubanaa haddii dab yani skeer la soo daayo aan dhehe waqti yar uu ku gubanaa mar walba dabka la sii badayo waqtigan uu sii badanaa macnaha haddii yani waxaan kala jeedaa matalan 1400 mili ampere oo kale matalan la soo daayo oo kale intaasoo mili ampere haddii la soo daayo 0.7 second uu ku go-aayo macnaha 0.07 second marka la joogo buu istaagaa laakiin marka 700 mili ampere oo kale la soo daayo ilaa iyo 1 second uu macnaha gaaraa macnaha laakiin fuse-ka mainly wuxuu ku shaqeeyaa 0.01 second ilaa iyo 0.02 second uu ku shaqeeyaa intaas in yani waqti intaas la gudaheed uu ku joojiyaa korontada macnaha okay xiriirka dhexe marka wuxuu sheegaa marka current-gaaga iyo time-kaaga xiriirka dhexe halkaas ku baranayna marka faa'iidooyinku leeyahay maxay marka fuse-ka marka kow horta fuse-ku waxaa weeyaan it is the cheapest form of the protection available waa qalabka ugu raqiisan oo loo isticmaalo in yani dab lagu difaaco it requires no maintenance yani wax dayactir uma baahna fuse-ka waxay ku shaqeysaa qaab automatic u shaqeysaa macnaha ma u baahan in yani adiga aadimis amba adiga daarta adoo iska jirtaa dab qaldan kugu soo dhacayo automatic la saas daminaya gubasho wax dhan ma sababay wuxuu kaloo yani faa'iido ku leeyahay kamida it can break wuxuu jibi karaa heavy short circuit haddii short circuit current oo fara badan la soo daayo isla markaa dabku istaagaa marka asagoona wax dhawaaq qaylina aana sameynin gubasho aad maqlayso uusan sameynin smoke wax qiican oo soo deynin marka
mar walba oo fiyuuskaaga cabirkiisa uu yaraado current limitingkaaga uu yaraana مثلا bahalkan oo kale duubareeskan oo kale fiyuus baa ku dhex jiro fiyuus ku jiro wuu yaryahay because current isticmaalna waa intee waa 6 ampere oo kaliya waa macnaha haddii marka ampereskan uu sii ziyaado cabirka fiyuuska isticmaalana wuu weynaanaa marka timekaaga iyo currentkaaga inverse proportional isku yihiin haddii yacni macnaha current badan lasoo daayo time yar uu ku damaa haddii current yar oo melting pointkaaga taabtay haddii lasoo daayana time xoogaa kii hore ka dheeraayo qaadanaa marka hal mar haddii degdeg oo weyn hal mar lasoo daayo automatically hore iska daminaa macnaha fiyuuskaaga minimum time operationka ku shaqey karo fiyuuskaaga waxaa loo yaqaanaa waa qaadan doonaa waxaan ku qaadan doonaa casharada soo socda buu ku jiray important times current uu ku shaqeyn karo waxaa loo yaqaanaa current rating fuse loo yaqaanaa dabka ku shaqeyn karo dabka ku guban doona waxaa loo yaqaanaa fusing current labadaba waa kala baran doonaa insha Allah cashar caadi ah qaadan doonaa aan soo laabana marka disadvantage marka faa'iidada oo leeyahay yani baa kala raado fuse maxaa kamid marka saddex faa'iido oo leeyahay kow time loss waqti uu qaadanaya yani markii dib marka loo dayac dib marka loo bedelayo macnaha replace marka lagu sameynayo ama marka fiiladiisa gudaha marka dib loo xirinayo sometimes waxaa dhacda yani fiyuuskaaga fiilada gudaha kaliya in inta la bedelo fiilo kale cusub oo gudaha lagu xiriiriyo labis fiilada gubatay oo kaliya in laga bedelo sometimes replacement caadi ah lagu sameeyaa asagana loo bedelaa laakiin fiyuuska yarka oo baalkan aan gelino oo yarka ah asaga low voltage fuse alla fiyusada noocaas oo kale ah asaga waa la iska tuuraa mid kale oo yar oo hal rubi ama laba rubi uu joogaa la iska soo gataa waa lagu bedestaa marka labo on heavy circuit markii uu dhaco dab qaadan weyn markuu yimaado wuxuu sababaa in yani barti uu ku yaalo uu ku dhiimo macnaha uu gubanayaa meesha inuu ku dhiinayaa oo yani waxa dhacaysa inuu ku dhago meesha dhanba in sida wax koola bar lagu dhajiyo kala hadda tii ugu dhacdo kala anigoo kale in uu yani meesha ku dhago xooga ugu fujiso marka dambe mid kalena inay gelisay kugu adkaato saddex current time characteristics fuse cannot always be correlated currentiga dabka kugu soo dhacay iyo timeka ay qaadanaysa inay dimisan mar walba ma la isku qiyaas karo macnaha laakiin waxaa xaqiiqo la ogyahay mar walba oo current aad u fara badan uu yimaado in time yar ay qaadato in isdimiso macnaha korontada fuse-kaaga uu shaqeeyo dan waxaa gelinaa markaa describable characteristics of the fuse fuse-ka marka dabeecadaha lagu doorto maxaa kamid ah afar dabeecadaha lagu doortaa kow low melting point in melting pointigiis aad u hooseeyo hore inuu ka gubanaya macnaha haddii dab qaldan uu kusoo dhaco waxaa laga sameeyaa tin iyo leader inta badan loo isticmaalaa si low melting point loo helo lambar labo high conductivity inuu dabka si fiican u xiriiri karo because fiilada gudaha ku dhex jirto fuse-kaaga fiilada dhex marayso connector waa macnaha inay dabka si fiican u xiriiri karto marka waxaa la doortaa silver iyo copper la doortaa ayadana free from deterioration yani waa inuu free ka yahay inuu yani daxalisto ama duqoobo oo kale fuse waxaa laga rabaa marka uu gubto kaliya in la bedelo laakiin in maintenance lagu sameeyo iyo in la dayac tiro iyo in yani waxaa la yiraahdaa uu daxalisto kale iyo ma loo baahna macnaha fuse waa inuu markuu gubto kaliya la bedelaa afar يعني waxyaabaha fiyuuska lagu darto waxaa kamid ah low cost in qiimihiisa uu hooseeyo si qiimihiisa uu hooseeyo marka waxaa ka saacidi kara inuu ka samaysan yahay lead ama tin ama cover in laga sameeyo ka saacidi karta marka next waxaan gelinaa marka fuse element material marka fiyuuska marka gudihiisa geedka ku dhex jiro marka uu dhex maraayo wuxuu ku xiran yahay nooca dabka markaas aan isticmaalayno haddii dab badan aan rabno in iska celino kale waxaa u baahanaa inaan isticmaalno copper iyo zinc iyo silver u baahanaa hadduu dabkaaga hadduu fara badan yahay macnaha haddii uu dabkaaga yar yahayna lead iyo tin aan ka badan kale boqolkiiba 63 waxaa la isticmaalaa tin la isticmaalaa boqolkiiba 37 waxaa la isticmaalaa lead la isticmaalaa marka waa nooc kamid ah fiilada gudaha ku jirto oo gubad doonto waay macnaha waxyaabo noocaas inuu sheegaysaa yani melting pointiga dan marka waxaan geli doonaa marka qodobo ayagana marka inoo xigo. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.